xafiiska jidadka deegaanka Soomaalida oo ka duulaya xaqiijinta waajibaadkii loo igmaday ayaa guulo la taaban kara ka soo hooyay sanadadii u dambeeyay mashaariicda horumarineed ee dhanka jidadka deegaanka Soomaalida waxaa haatan ka socda in ka badan 1700 kiiloomitir oo laami ah kuwaasi oo kala ah 24 mashruuc ay ku baxayso adduun lacageed oo dhan 16 bilyan oo bir sida uu noo sheegay wasiirka xafiiska jidadka deegaanka Soomaalida injineer Saddam Xuseen oo aan wareysi gaar ah kula yeelanay xafiiskiisa marka ka xafiisan dadaalo badan baan wadnaa hadda ka hor nidaamadii jirayay bal inaan wax ka bedelo oo ah mashaariicda in mashruuc 200 kiiloomitir amba 100 kiiloomitir in hal mar un laga dhigo inaan ka bedelo oo qayb loo qaybiyo 20 kiiloomitir ba markii la dhameeyo in xariga laga jaro ay dadku ka faa'iideystaan laba faa'iido leeyahay qadaraasii faa'iido yahay faa'iidadii bulshada aan baadaygu siinayay ay bulshada ka faa'iideysanaysan waa laga faa'iideysanaya qandaraasli kuma khasaarayo oo wadada la isticmaalayo maadaama tahay dhaqaale ahaan deegaanka markaad u eegtidna faa'iido weyn bay ayuu soo hoynaya oo qaybtii la sameyn karaba sanad walba in lagu xisaabtamay noqon doonta dadaalo badan oo dhinaca xafiiska aan ka wadnana way jiraan kulay guud ahaan deegaanka mashaariicda ka socda ee jidadka la xiriira waa mashaariic aad u ballaaran markaad eegtid dhinaca miisaaniyadda dawladda laga fulinayo mashaariicda waliba kuwan jayga wadooyinka jayga waa wadooyin aad u fara badan ilaa 18 wado oo soo socday waxyaabo badan oo hadda aan isku daynay inaan ka bedelo mashaariicdaas ayaa socda si ay muddo gaaban ugu dhamaadaan takale waxyaabo badan inay ka bedeli doonaan socodka deegaankeena waad ogeydeen xaaladda uu deegaanku ku jiray hadda ka hor inta badanka xagga wadooyinka wadaduna waa lafdhabarta kaabayaasha dhaqaalaha marka dhinac walba eegtay haday wada jirto unba waxyaabaha kale horumarka laga sheekeyn karaa marka si guud ahaan waxyaabihii ka socday deegaan ahaan aan u wadnay intaas weeyay wasiirku hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale inoo sheegay in mashaariicdii ugu badnayd ee abid ee dhanka jidadka ah uu ka helay deegaanka Soomaalida dawladda dhexe ee federaalka isbedelkii kadib taasna ay muujinayso dadaalada aan kala go'an lahayn ee xukuumadda deegaanka Soomaalida ay ugu jirto horumarinta iyo kor u qaadida kobaca dhaqan dhaqaale ee bulshada deegaanka Soomaalida ee xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqato beeraleyda ah haddii dhinaca la eego federaalka mashaariic aad u fara badan ayaa muddadii 3 sano ee barkii laga helay abid mashaariic aan laga helin deegaanka waa mashaariic aad u ballaaran qiyaas ahaan waxa weey waa 1700 kiiloomitir oo laami ah oo mashaariic aad u fara badan 24 project oo hal bridge ay ku jirto inta kale waa wadooyin weeyeen marka project ahaan laga dhigo 15 mashruuc bay noqonayaan maadaama projectyaal qaarkood qayb loo fuliyo oo qandaraaslayaal kala duwan ay fuliyaan waxaan dhihi lahaa guushan waa guul aad u weyn markaad eegtid deegaan ahaan lacagta ku baxaysa waa 26 bilyan weey oo birka Itoobiya intaas waa la garan karaa faa'iidada bulshadeena u soo heynayso ta kale waxyaabo badan soo socodka dhul aan hadda ka hor la galeyn ay wadooyinka marayaan gobol walbana wadooyinka way mareen markaas 24 project hadda si fiican bay u socdaan kuwa qaarkood hadda dhamaan doona dhawaan sanadadan soo socda iyo sanadka 2024 badankooda ay dhamaanayaan ay iskugu jiraan mashaariicdaas waxaan dhihi lahaa waa guul deegaanka soo hoyatay dhanka kale mashaariicda dhismaha laamida isku xidha jigjiga harmukaale dhererkeedu dhan yahay 104 kiiloomitir iyo waliba mashruuca laamida isku xidha jigjiga faafan galashay dhagaxmadow iyo sagag oo dhererkeedu dhan yahay 212 kiiloomitir oo laami ah ayaan wax ka weydiinay wasiirka xilliga lagu dhameystiri doono mashaariicdan ayaa waxa uu yidhi waayay labada jid kulay jidkan ka baxa jigjiga ilaa harmukaale wadada laamiga Djibouti ku dhacaya waa jid kulay waa la garan karaa faa'iidadu bulshadeena u leeyahay waa jid muhiim ah weey muddo sanad ka yar inuu ku soo gabagabo yaa la rajeynaya meel fiican oo maraya markaad eegtay qiyaasaan 60% ayuu gaadhay hadda
waxyaabo yaryar oo caqabado oo dhinaca dhulka la xiriiro arrimaha inaan hadda ka xalino oo degmooyinkii ay khuseeyeen waan kala wada hadalay marka shaqooyinka si fiican bay u socdaan muddo gaaban waa lagu soo gabagabeyn ta kale dhinacan markaad eegtid wadadan isku xidha faafan amba dhagaxle ilaa sagag mashruuca la yiraahdo amba jijiga galaalshe dhagaxmadu sagag mashruucaas waa mashruuc saddex qaybood buu qaybsanaa qaybtii koowaad way dhamaatay oo waa marka laga bilaabo Iberebel ilaa 55 kilomitir iyadu way dhamaatay dhinaca galaalshe ilaa dhagaxmadu iyaduna waa qaybta labaad amba loodka labaad loo yaqaano iyadu meel fiican bay maraysaa 30% bay maraysaa marka boqolkiiba loo eego waxaan rajaynaynaa waa mashaariicda dhammaan doona 2024 si fiican way u socdaan waxyaabo badan ay bulshadu ay ka heshay baa jirta mashruuca tusaale ahaan in xilliga abaarta meelo harooyin ay qodaan oo hadda biyuhu ay galeen hadda ka hor ceelal ay isku dayeen ay qodeen walow ay biyuhu yar yihiin marka waa shirkad waxaan dhihi karnaa bulshada xagga community service-ka aad waxyaabo badan uga qabatay arinta kale ee ah amba loodka kale ee ku xigay ee ah dhagaxmadu sagag isagu loodka si fiican buu socdaa muddo sanadan in la soo gabagabeeyo ayaa lagu rajayn yahay wuxuuna marayaa boqolkiiba 53 ayuu marayaa taa laftigeega qandaraasluhu waxyaabo badan oo saan sheegaya ee loodkii hore aan ku soo sheegnay ayuu ka qabtay sida harooyinka oo kale isagna iyo ceelal lamidaba bulshaduna aad bay uga faa'iideystaan ta kale waxa kale oo dheeriya xilligan abaarta lagu jiro booyado ilaa 4 ayay u kareeyeen oo dadku ay ka faa'iideystaan kulay degmooyinka sagag iyo dhagaxmadu aad bay uga faa'iideystaan marka waxaan dhihi karaa bulshadu aad bay ugu dayrsatay arrimahan waa mashaariic mug weyn leh oo deegaanka faa'iido weyn u soo hoyn doona waxaan rajayn doonaa inta in ka badanna inaan heli doono kulay dadaalka in la sii xoojiyo mashaariic inta ka fara badan in deegaanku heli doono waliba xagga laamiga isku soo wada duubo deegaanka Soomaalida ayaa laga dareemayaa isbedel xooggan oo dhanka jidadka Sacad Abbas Cali